yaasiin ayaa samayn doona baaska qaybta koowaad ee ciyaarta waxool ayuu soo sameynayaa yaasiin iyo kooxda kubadda cagta ee waxool baaska qaybta koowaad ee ciyaarta waa la sameeyey gadaal ayaa kubadda loo furay kabtan cabdulqaadir la soo ciyaar saaxiibkiis nuuraani ayaa lala ciyaaray durba waa dhiibta markan waa kan caseer yaasiin ayaa dhamaystiray goolka koowaad ee ciyaarta yaasiin yimid kadib qalad uu sameeyey nuuraani maxamed nuuraani difaaca kooxda badroolka waxool ayaase qaladkaasi ku iqaabtay caseer iyo gol ayaa ka soo tufay yaasiin ayaase ku labaxriyay gool iyo ebre ee ciyaarta noqotay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee waxool ayaa dhaliyeen goolka koowaad ee ciyaarta badroolka waa lagu bilaabay kulanka la soo dhaafay badroolka barbardhac ayay ku soo furatay halka waxool kulanka la soo dhaaf ay soo guulaysteen waxay doonayaan guushooda labaad oo xiriira inay gaaraan meel fiican markan yaasiin afkoray goolka yaasiin goolku waa kormariyey maxamed cumar waa uu soo tuuray kubadda ibraahim waa soo saaray ugu dambeyntii penalty amariga hore badroolka ayaa heshay penalty kadib markii bokiska kooxda waxool lagu jilaafeeyey weeryaanka kooxda badroolka cabdiraxmaan marshiyaal penalty amariga hore ayay helayaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee badroolka waxool ayaase laga dhigay waxool ayaa laga dhigay penalty cabdiraxmaan gool iyo gool ee ciyaarta noqotay cabdiraxmaan maxamed axmed marshiyaal ayaa dhaliyay goolka barbardhaca kadib penalty isaga lagu galay gool ayuu u bedelay badroolka gool waxool gool horyaalka heerka labaad ee serbeda kulamadiisa labaad ayaana soconaya min kulan ayay labadan koox hore u soo ciyaareen meel fiican marka sahal waa khasaariyey wala soo turi maxamed cumar goolku waa uu kormariyey ugu dambeyntii ciyaartu way ilaatay gool iyo gool ayay ku kala tageen kooxaha badroolka iyo weliba waxool oo kulankii la soo dhaafay guulaysatay ayaa taaka loo dhigay halka badroolka barbardhicii labaad ay galeen